bismillaahi raxmaani raxiim kulanti aboon saaxiibadaynu ugu xidhan meel walba oo joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu YouTube-ka ku leenahay run sheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warkaydiin kugu haynana waxaa kamid ah hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni ma u tartami kara xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya isagoo aan isaasilin xilli shacabweynaha reer Puntland ay ku ducaysanayaan inuu Ilaahay mar dhinac u dhaafiyo weerar ballaaran oo midaysan oo lagu qaaday magaalooyinka tirsan Sacuudiga iyo Mareykanka oo ka dalbaday dawladda Turkiga in gantaalaha uu ka iibsaday Ruushka uu ku wareejiyo Ukraine si uu isaga caabiyo dawladda Ruushka oo weerar ku ah Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale ayaa saaxiibadaynu ugu xiran awdiin soo gudbin doona haddii rabbi raali ka noqdo fadlan hadii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadaan like na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal si hordhac warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni ma u tartami kara xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo aan isaasilin xilli habeennimadii xalay ahayd oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Said Abdullahi Deni ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya kadib mudooyin badan oo warkaasi uu suuq ku jiray waxaan rabaa in aan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ba u sheegay in aan u taaganahay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxaan halkan abaaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta madaxtinimo ee Soomaaliya inay ku midoobaan in maamulka hadda jira la bedelo ayaa kamid ahaa erayadii uu hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni ku shaaciyay go'aankiisa iyadoo ay xusid mudan tahay in xilligan ama Said Deniba aan xilligan oo kale la aamini karin maadaama oo dhabarka ka toogtay nimankii waqtiga badan la soo jamhadeynayay su'aasha ugu badan oo hadda dadku isweydiinayaan ayaa ah Said Deni ma uu tartami kara xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo aan iska casilin xilka madaxtinimo ee Puntland marka la fiiriyo sharciga u yaala maamul goboleedka Puntland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo hadlay ayaa tilmaamay in hadii uusan iscasilin hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni marka uu isku taagay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya in baarlamaanku ay ka fariisan doonaan xilkana ay ka qaadi doonaan maruu ka jawaabayay in dastuurka Puntland ay ku qoran tahay in xilligaas ama madaxweynaha xilligaasi jooga hadii uu xil kala damco inuu u tartamo dastuurka waxa uu ka qabo libaanka ayaa sheegay in dastuurka uu qabo in xilka laga qaado ama uu iscasilo hogaamiyaha markaasi jooga Puntland hadii uu meel kale oo hanqal taago Faarax Cismaan oo wax badan ka qoraarimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladda Puntland ayaan weydiinay su'aal ah in Said Deni uu tartami karo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo aan wali amaba ah madaxweynaha Puntland Faarax ayaa sheegay in dastuurka Puntland aysan ku qornayn in qofka xilka haya haduu xil kale uu isu taago inuu iscasilo oo xilka wareejiyo meel ay ku qoran tahay ma jirto ayuu yiri Faarax balse xildhibaan Cawile oo hadlay ayaa sheegay in waqtigii Cabdullaahi Yuusuf uu ahaa dastuurka ku meel gaar balse xilligii Cabdiraxmaan Froole laga dhigay dastuurka mid sax ah oo markaasi aan waxba laga bedelayn dastuurka Puntland ee hadda ay ku jirto in hadii uu madaxweynuhu uu xil kale isu taago in markaasi xilka laga qaado ama uu iscasilo labadaasba mid ay noqotaba waynu arkaynaa maalmaha soo socda hadduu rabbi raali ka noqdo sidoo kale lama oga hadii shuruudaha xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ay gudiga doorashada ku soo dari doonaan inuusan xilka madaxtinimo u tartami karin cid xil kale haysa midaas hadii ay gudiga doorashada ay ku soo daraan noqonaysa caqabad hortaagan hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni hadii uusan iscasilin ama baarlamaanka Puntland ay ka fariistaan ay xilka ka qaadaan hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya taasi oo farxad u noqotay shacabweynaha ku nool guud ahaan Puntland maadaama ay dhibaato badan ku qabeen hogaamintiisa muddadii 3 sano ah isagoo oo sameeyay ku takrifal awoodeed maadaama lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd doorashadii ugu dambeysay oo sida u maareeyay bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay marxaati ka ahayd qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Garowe Boosaaso oo wax laga weydiiyay musharaxnimada Said Deni ayaa aad ugu farxay markii uu go'aankaasi qaatay maadaama ay Rabbi subhanahu wa ta'ala ka baryeen inuu dhinac u dhaafiyo hogaamiyaha Puntland ayaa u muuqda
inuu noqon doono saqiir siyaasadeed maadaama uusan hadda haysan garba ku filan oo kaliya uu ku xisaabtamayo dhowrkii xildhibaan oo uu la soo baxay taasoo maalinta doorashada wax walba ay ka dhici karaan halkaasi. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah weeraro ballaaran oo midaysan ayaa lagu qaaday magaalooyin ka tirsan Sacuudiga. Xuutiyiinta Yemen ayaa axadda maanta weeraro isugu jira gantaalo iyo drone oo kaga qaaday Sacuudiga kuwa oo beegsaday goobo muhiim ah ay ku jiraan xarumo laga soo saaro shidaalka iyo kuwa lagu nadiifiyo sida ay ku warameen warbaahinta Sacuudiga. weeraradan ma aysan sababin wax khasaare balse waxay waxyeeleeyeen baabuur shacab iyo guryo ayay yiraahdeen xulafada military ee Sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka Yemen. duqeymahan ayaa yimid iyadoo shirkadda Sacuudiga ay maanta ku dhawaaqday in maciishadeeda sanadkii 2021 ay sare u kacday 124% oo uu gaaray 110 bilyan oo dollar. Armac ayaa warbixinteeda dakhliga siisay toddobaadii kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka iyo Ukraine kaasoo gilgilay suuqyada shidaalka ee caalamka sarena u qaaday qiimaha. afayeenka Xuutiyiinta Iiraan taageerto ayaa sheegay in howlgalka military oo baaxad weyn ku qaadeen bartamaha Saudi Arabia axadda maanta iyaga oo gantaalo balaasiga iyo dayuurada aan duuliye lahayn oo bombooyin laga buuxiyay ku beegsaday goobo ay leedahay Armac iyo bartilmaameedyo kale oo xasaasi ah ku yaala dalkaasi. waxa uu weerarkani ku qeexay mid looga argudanayay gardarrada iyo xanibaadda Sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ah Yemen. xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo ayaa sheegay in weerarada cirka ee Xuutiyiinta lagu beegsaday goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin warshada gaaska lagu sifeeyo oo Armac oo ay ku leedahay dekada ku taala badda cas. waxaa sidoo kale la beegsaday xarunta korontada laga dhaliyo oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi, warshada gaaska lagu nadiifiyo oo ku taala Al-Shaqiiq oo ku teedsan badda cas, xarunta Armac ku leedahay magaalada koonfureed ee ku taala xuduud ee Jizaan iyo xarunta gaaska lagu iibiyo oo ku taala magaalada Khamiis. macadda weli heerka waxyeelada ee weeraradan ay gaarsiiyeen xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta Sacuudiga. ma jiraan wax dhaawacyo ah ama dhimasho ah, mana jiraan saameyn ay weeraradani ku yeesheen in shirkadda ay badeecadaheeda gaarsiiso maciishadaheeda. waxaa sidaas yiri madaxweynaha Armac Amiin. weeraradan ayaa yimid maalmo kadib markii golaha iskaashiga khaliijka ay dhinacyada ku dagaalamayay Yemen ku casuumeen wadahadalo ka dhaca Riyaad oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka. casuumadan oo ay ku gacan sayreen Xuutiyiinta kuwa oo dalbaday in wadahadalku ka dhaco dal dhexdhexaad ah. qodobada kale saaxiibayaal idinahana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka ayaa ka dalbatay Turkiga in gantaalo uu ka iibsaday Ruushka oo ku wareejiyay Ukraine. dowladda Mareykanka ayaa wada dadaal ay ku qancinayso wadamada ka tirsan gaashaanbuurta NATO iyo midowga Yurub ee Ruushka ka iibsaday hubka casriga inay ku wareejiyaan hubkaasi dowladda Ukraine. saraakiisha Mareykanka ayaa la sheegay in Turkiga kala hadleen suurtagalnimada in gantaalaha difaaca hawada ee S-400 ee Ruush ku sameeyay kana iibsadeen dowladda Turkiga in ay ku taageeraan dowladda Ukraine ee dagaalka kula jirta Ruushka. wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay in saraakiisha Mareykanka bishii hore soo jeediyeen in si rasmi ah ay ugu gudbiyeen Turkiga, waxayna arintani soo baxday xilli Turkigu booqasho ku tagay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la sheegay inay wadamada xulafada la iibsaday hubka iyo qalabka difaaca hawada S-300 iyo S-400 ee sameeyay dowladda Turkiga ka codsaday inay ku taageeraan dowladda Ukraine si ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka. dowladda Turkiga ayaa loo badinayaa inay iska diidi doonto codsiga uga yimid dowladda Mareykanka, mana jiro war rasmi ah oo ilaa hadda ka soo baxay dowladda Turkiga oo ku aadan soo jeedinta uga timid Mareykanka ayaa hore uga carooday in Turkigu uu ka iibsado Ruushka gantaalaha difaaca hawada ee S-400, waxayna tallaabada Turkigu uga iibsaday Ruushka gantaalada difaaca keentay in ay isku dhacaan Mareykanka una xumaado xiriirka labada dal. waa hag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na inagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeya aad u heshaan idinka alle.